بسم الله الرحمن الرحيم. halkan maanta waxa shir jiraa'id oo kooban ku qabanaya Ibraahim Wagar afhayeenka guud ee xisbiga Waddani ee qaaradda Australia. waxaan doonayaa inaan siyir dul taago oo naqdiyo laba arrimood oo uu ka dhawaajiyay xisbiga xaakimka kulmiye gaar ahaan gudoomiye MUSE bixi cabdi. labada arrimood oo kala ah dhacdadii foosha xumayd ee lagu weeraray madaxda xisbiga Waddani gaar ahaan xogayaha cadaaladda Haldoor Barkhad iyo gudoomiyaha dhalinyarada heer qaran Maxamed Sadiiq. labada dhacdo oo MUSE codsaday in xisbiga Waddani keeno cadaymihii dadkii dhacdada fulinimada fuliyay. waxaan leeyahay gudoomiye MUSE iyo xisbiga kulmiyeba u sheegaya xisbiga Waddani waa hayaa cadayntii miiskana way saaran tahay. wuu hayaa xisbiga Waddani cadayntii oo wuxuu hayaa raggii fuliyay dhacdada oo laga duubay markay abaabulayeen falka fulinimada ah cod telefoon ay soo direena. waxa la hayaa telefoonka ka soo direen numberkiisii. waxa la hayaa sad numberka ay ku leeyihiin Somaliland. marka MUSE xisbiga kulmiye waa xisbil xaakimka dalka xukuma, adiga CID da xukuma, adiga booliiska xukuma, adiga national security ga xukuma. xisbiga Waddani ilaa iyo hadda dee dalka lama wareegin. haddaad adigu moodayso inuu weli la wareegay, lama wareegin baan leeyahay. waxa markaa aanu leenahay haddaanu xisbiga Waddani nahay cadayntayadii miiskaasay saartaa taallaa oo telefoonkii baa yaalla oo codkoodii baa yaalla oo sad numberkoodii baa yaalla. cidda laga sugayo inay soo qabato waa booliiska, waa CID da oo dhammaantood ah aad xisbi xaakim u tahay. taa adigaa laga sugayaa inaad soo qabato dadka. taa haddaan halkaa kaga gudbo waxaan u gudbayaa labada dhacdee kale ee ah naqdigii aad naqdiday waftigii xisbiga Waddani ee dhowaan u boqolay dalka Kenya ee u baadi doon tegay dadka reer Somaliland ee abaaruhu ku habsadeen oo ka damqaday oo halkaa inay caalamka gaarsiiyaan dhibaatada iyo mushkiladda ka dhacday Somaliland ee abaaraha ah. ayaa waxa dhacday inaad caayad yar oo raqiisa oo aan miisaan lahayn halkaa ka keenteen oo ku salaysan sawirro la isu geeyay oo laga faa'iideystay technology-ga maanta adduunku marayo. taa waxaan leeyahay wax Waddani wax u dhimaya maaha. waa la ogyahay Waddani inuu u taagan yahay qadiyadda Somaliland iyo inuu ummadda reer Somaliland la damqado oo marba wixii la soo dirsa uu u baadi doontabo. idinku wax xil oran jiray wax qabad waa ku hadheen waana la idinkaga badiyay. taa haddaan halkaa kaga gudbo iyo la kulanka madaxda Soomaalida waxaan leeyahay kulmiye markii uu dalada dalka la wareegay muddo hadda laga joogo 7 sano ku dhow waxa xalaashateen in la kulantaan madaxda Soomaalida oo si la og yahay shuruucdii xakameynaysa inta dalka ka qaadeen la kulanteen. waxa kula kulanteen London, waxa kula kulanteen Imaaraadka, waxa maalin sanad walba kula kulantaan dalka la yiraahdo Turkiga. maxaa uga keenteen Somaliland kulamada xalaashateen ee Soomaalida la kulmisaan madaxdeeda? waxa ka uga keenteen Somaliland oo u soo kordhiseen inaad dekadii ku wareejisaan dalka Imaaraadka oo ay idin saxeexaan madaxda Soomaaliya in saldhig military oo garoonkii diyaaradaha ah ay ku wareejisaan dalka Imaaraadka oo ay idin saxeexaan madaxda Soomaaliya. intaasaa horta ka keenteen. wax kale oo ka keenteen ma jiro. waxa xaqiiqo ah in wixii wax qabad la oran jiray ku hadheen. nin baa laga hayaa hadday aabacay tahay inaad ku hadhay baan sheegay. wax qabadkii waa ku hadheen, baadidoonkii waa ku hadheen, diblomaasiyaddii waa ku hadheen. inaad ummadda la damqataan oo la ooydaan dhibaataysan waa ku hadheen baan leeyahay. waxaan ku soo koobayaa Soomaalida kulankeeda idinkaa xalaashaday. waxaanan leeyahay
ogow dhuumashada qaar uu dhabarku muuqdaa waa dhib iyo hadime idinka idin tahay taasi waxaa ku caanamaasheen